ololaha qorista iyo akhriska waa olole dadka reer guuraaga ah wax lagu barayo waxa uu hadda ka socdaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Ololahan ayaa waxaa soo abaabushay wasaaradda waxbarashada Galmudug oo kaashanaysa hay'adda Iftiin iyo aqoon-yahanada deegaanka. Annaga oo ah bahda VOS TV ayaa socdaal shaqo waxa aan ku tagnay qaar ka mid ah deegaanada uu ololahani ka socdo. Halkan waa tuulada Laamandhaayeed oo hoos timaada degmada Cadaado. Waxaan halkan kula kulannay dad ka faa'iideystay ololahan waxbarasho. Waxaan ahay oday jooga magaalada la yiraahdo Laamandhaayeed oo ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Cadaado. Magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Suuqdoon Cabdi. Waxaan ku dhashay geeska koonfur magaalada Laamandhaayeed oo la yiraahdo Xunshaalow. Waxbarashadii koowaad oo noo timid oo naloo keenay ayaan ka faa'iideystay. Horteedna waxna ma qori jirin waxna ma akhri jirin. Haddeerna waxaan soo dhaweynaynaa dhalinyarada sharafta leh oo noo timid oo waxbarashada noogu timid ayaa soo dhaweynaynaa. Sidoo kale iyo si ka badan ayaa rabnaa inaan uga faa'iideysano. Diyaarna waan u nahay hooyo iyo dhalinyaro iyo oday kulli dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan ka faa'iideysano waxbarashada Galmudug ay noo keentay. Wabillahi dadbaana hadeen markii waayeel iska hadeen dilay maciidi noqora si toos u qorayaan waqti waan u yaraaday juhdigiina waan u yaraaday dadaalkii hadda waan diyaar u nahay inaan juhdiga dadaalka la soo bixiyo ka faa'iideysano oo macaashkaas waxaan ugu talagalnay aan iska dayicin oo naloo sii ballaariyo. hadda ka hor olol waan soo gaaray sanadkan bishii hore oo sanadkiisii waxaan rajaynayaa sanadkan inaan hadii Ilaahay ka qayb qaadano waxbarashada cid kasta oo waxbarashada ka socota waan soo dhaweynaynaa deegaanku u baahan yahay intaan mid wax hore lagu ma arko hadii Ilaahay ku yahay waan soo dhaweynaynaa waana rajaynaynaa in Ilaahay noo suura geliyo. marka waxaan rabnaa marka koowaad kulleeyba waxbarasho waxay ka bilaabataa fadhi iyo isfaan ay ka bilaabataa fadhigi iyo isfaankii waa bilownay waxa kale oo ku xiga buugaag iyo wixii wax lagu qoran lahaa ama sabuuradaha ama buugaag ahaatee waa yaalaan oo waa naloo keeno horteeda yaalaan. waxa ku xiga meeshii la fariisan lahaa haddaysan fadhi lahayn oo isasal lahayn ma socdaan. maadaama marka koowaad ama geed hoostiisa lagu bilaabo ama lagu bilaabo meel hadda qof leeyahay shakhsiyan waxa ay rabaan fadhi in loo yeelo haddaysan fadhi lahayn ma socdaan. geelba haddii aan ubadku meel ugu xareysanayso golo lahayn ma soo yeelo laguna soo hoyi karo marka xareeb karo u fariisanayo. ummaduna waa sidoo kale meel aan fadhi lahayn isku yimaado labada fadhiisto. marka waxaan codsanaynaa waxbarashada diyaar baan u nahay waa u baahan nahay haddaan weynahay haddaan yar yahan nahay waxa in ka rabnaa oo in ka codsanaynaa in naloo bogaadiyo oo naloo dheereeyo oo waqti badan iyo ijtihaad badan iyo qarash badan iyo hawl badan lagu baxshaan rabnaa oo ka dhowreynaa qolada Galmudug wasaaradda waxbarashada Galmudug iyo Iftiin annaguna waa ka qayb qaadanaynaayo. deegaanada kale ee ololahani uu ka socdo isla markaasna aan socdaalkeena shaqo ku tagnay waxaa ka mid ah deegaanka Meerxeyley oo iyana hoos timaada degmada Cadaado. xilli wasaaradda waxbarashada Galmudug oo kaashanaysa hay'adda Iftiin ay halkaasi ku guddoonsiinayeen dadka deegaanka agabkii ay wax ku baran lahaayeen. agaasimaha waxbarashada ee degmada Cadaado Xuseen Cali Sahal oo aan halkan kula kulannay ayaan wax ka weydiinay ololahan waxa iska kaashanaya wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo wasaaradda waxbarashada Iftiin. sanadkii ololihii aan ka sameynay deegaanada ee Cadaado ku hareeraysan bahda waxbarashada degmada Cadaado iyo wasaaradda waxbarashadu ay fulinayeen wax la taabo kale ayaa ka soo baxay. sanadkan waxaan rajaynayaa deegaanada aan tagnay in sidaas la mid ah ayaguna maaragtay dadaalkaas ilmihiina inaad gelisaan sida aad cuntada iyo waxyaabaha kale oo daruuriyaadka aad u jeceshihiin in ilmuhu ay helaan waxaas bahalkii waxa ka sii muhiimsan waxbarashada ayaa ka muhiimsan. wasaaradda waxbarashada Galmudug oo kaashanaysa hay'adda Iftiin ayaa sanadkii hore sidaan oo kale waxa ay deegaano ka tirsan Galmudug ka fulisay ololahan qorista iyo akhriska waxaana ka faa'iideystay dad badan oo reer guuraa ah oo kolkii hore ku dhibanaa qorista iyo akhriska Farsoomaaliga. Cabdi Xasan Awowe VOS TV Cadaado.